السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سدحي طبانكي بيشي كوي تبناي دولقايد كنا فربخل أفرتن التوكو بيغان صدنكي بيشي أفراد لوكون لواتن لحظة مجتبى قميني عتوبي عصب أيا كبلاوان دونو قليجكا إمارنك هرمس مجتبى قميني أيا sheegay in cutubyo cusub ay ka bilaabmayo gobolka Khaliijka iyo marinka Hormuz, isagoo xusay in mustaqbalka gobolka uu noqon doono mid aan ku tiirsanayn Mareykanka, isla markaana u adeegaya horumarka iyo amniga dadka deegaanka. Wuxuu ku tilmaamay Khaliijka inuu yahay nimco ka weyn biyo kaliya, isla markaana uu yahay qayb ka mid ah aqoonsiga iyo taariikhda Iiraan, sidoo kalena uu yahay marin dhaqaale oo aad u muhiim ugu ah dunida, gaar ahaan Hormuz iyo biyaha iyo badda Cumaan. Mujtama wuxuu ku eedeeyay Mareykanka inuu yahay sababta ugu weyn ee xasilooni darrada ka jirta gobolka, isagoo sheegay in joogitaanka ciidamada ee saldhigyada Mareykanka ee Khaliijka aysan keeni karin amni dhab ah. Wuxuu sidoo kale sheegay in Iiraan ay bixisay dadaallo iyo allabaryo waaweyn si ay u ilaaliso madax-bannaanida Khaliijka, isla markaana ay la dagaalantay quwadihii shisheeye sida Boortaqiiska, Ingiriiska iyo Holland. Mujtaba Khomeini wuxuu xusay in la bilaabo in bilihii u dambeeyay ay muujiyeen awoodda ciidamada badda ee Iiraan iyo sida ay dadka koonfurta Iiraan ay uga horjeesteen faragelinta shisheeye. Ugu dambeyntii, wuxuu sheegay in Iiraan ay wadaagto masiir dariskeeda Khaliijka iyo badda Cumaan, isla markaana aysan meel ku leeyihiin quwadaha shisheeye ee ka imaanaya meelaha fogfog. Muhiimadda marinka Hormuz waa mid ka mid ah meelaha ugu muhiimsan tamarta caalamka. Qiyaastii 20% saliidda dunida u gudubto marinka maalin kasta. Qodobka waa qodobka koowaad. Qodobka labaadna waxaa weeyaan madaxweynaha Mas'uud Pezeshkian oo qabateynta badda Iiraan mid fashilmi doonto. Mas'uud Pezeshkian ayaa sheegay in isku day kasta oo lagu rogo cunaqabateynta Iiraan badeed ee ka dhan Iiraan uu ka hor imaanaya sharciga caalamiga, isla markaana uu fashilmi doono cunaqabateyntaas. Wuxuuna sheegay in biyaha caalamiga aysan ahayn meel lagu rogo cunaqabateyn, isla markaana hal dhinac magaranaysa dhinac, balse ay ku biyaha caalamiga aysan ahayn meel lagu soo rogo amaro hal dhinac ah. Mareykan wuxuu dhahayaa waxaan rabaa inaan cunaqabateeyo Iiraan kaliya, hal dhinac saas ay la jeedaan, balse ay ku dhisan yihiin iskaashi iyo nidaam caalami ah. Badda cid ma laho, qofna ma laho. Badda Iiraan dhinacay leedahay, badda gacanka Carbeed, Cumaan sidoo kale. Inta u dhaxaysana waxaa isla dadkana isla leh. Marka wuxuu leeyahay Mareykan inuu cunaqabateyn ugu soo rogo waa sharci darre aana suurtagal ahayn hal dhinac kaliya. Wuxuu ku eedeeyay United States iyo Israel inay mas'uul ka yihiin xasilooni darrada ka jirto biyaha gobolka. Wuxuu sidoo kale xusay in marinka Hormuz uu yahay qayb muhiim oo ka mid ah aqoonsiga Iiraan, isla markaana Iiraan ay ka go'an tahay ilaalinta xorriyadda maraakiibta navigation marka laga reebo kuwa ay ku
u aragto cadowga. Dhanka kale, wararka laga helayo White House ayaa sheegaya in Donald Trump uu la hadlay sidii wadahadallada wadida cadaadiska iyo xanibaadda Iran, iyadoo sidoo kale la diyaariyay qorshayaal military. Walaalahay waxaa labada qodob inaan insoo gudbiyo wixii warar kusoo kordhana waa inaan mar kale insha Allah. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.